waxay ahayd maalin madow maalin ay nafta waayeen in ka badan 227 oo qof 8 saac gudahood sidoo kale magaalooyin Camiraa ay isku bedeleen meelo burbursan kuwaas oo ay ka muuqato raadka in waa la dagi jiray haddaba si aan kula socodsiyo warbixintan fadlan marka hore page-ka follow sidoo kale like iyo share naga hilmaamin si aad uga mid noqoto kumanaan qof ee ku xiran tabinteena maalinlaha subaxa hada 26 December 2004 xilli saacadu ay ku beegneed 1 saac 48 daqiiqo dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay 9.1 rijar ayaa ku dhuftay xeebaha galbeed ee Sumatra dalka Indonesia dhulgariirkani waxa uu ka geystay dhibaatooyin aad iyo aad u weyn wadamo fara badan waxaana lagu qiyaasay dadka ku dhintay oo kaliya inay gaarayaan 227,000 ilaa 230,000 halka qiyaasaha qaarna ay sheegeen inay ka badan yihiin intaas oo ay gaarayaan ilaa 275,000 qof dhibaatada ugu badan waxa ay gaartay dalka Indonesia oo dalkii markii hore uu ku dhuftay dhulgariirkani isla markaana uu ka kacay sidoo kale waxa ku soo xigay wadamada Hindiya iyo Sri Lanka oo ayaguna noqday wadamada ay gaartay dhibaatada ugu badan markii laga soo tago dalka Indonesia 15 daqiiqo kadib dhacay dhulgariirka mowjado culus oo tsunami ah kuwaas oo lagu qiyaasay in ilaa 100 feet kor u kacsanayeen ayaa ku dhuftay xeebaha Sumatra ee dalka Indonesia waxaana halkaas ku naf waayay in ka badan 170,000 oo qof waxaana sidoo kale ciidda la silmay magaalooyin oo Camiraa halka la sheegay hantida ku burburtana inay gaarayso ilaa 4.5 bilyan oo dollar halse ay bar kadib xeebaha koonfureed ee dalka Thailand ayay gaartay tsunami-dan ka kacday badweynta Hindiya musiibadani waxay halkaas nafta ku dhaafisay in ka badan 5,400 oo qof oo 2,000 oo kamid ay ahaayeen dalxiisayaal ajaanib ah kuwaas oo wadankaas u jooga dalxiis maadaama dalka Thailand uu yahay wadamada ugu badan ee dalxiiska loo aado 2 saac kadib ku dhufashada tsunami-ga ee Thailand oo ku beegan 3 saac 45 daqiiqo kadib markii ay kacday tsunami-dan waxay markale ku dhufatay xeebaha waqooyi iyo cirifka koonfureed ee dalka Sri Lanka waxaana halkaas nafta ku waayay in ka badan 30,000 oo qof oo Sri Lankays ah intaas kadib markale waxaa dhacay 14 dhulgariir kuwaas oo lagu qiyaasay in cabirkoodu ahaa 5.3 ilaa 7.3 cabirka dhulgariirada saacadihii xigay musiibadani waxay ku fiday dalal badan waxayna markale ku dhufatay xeebaha koonfureed ee dalka India waxayna halkaas ku dishay 16,000 oo qof 8 saac kadib waxay soo gaartay qaaradda Afrika waxayna ku dhufatay wadamo badan oo saaraa badweynta India waxaana kamid ahaa wadamada ay ku dhufatay waxa kamid ahaa Soomaaliya Kenya Tanzania South Africa Maldives iyo wadamo kale oo saaran badweynta India wadamada ugu badan ee dhacdadan ay dhibaato ka soo gaartay waxa ay ahaayeen wadamada Indonesia Hindiya Malaysia Maldives Sri Lanka Seychelles Thailand iyo Soomaaliya markii la isku daro wadarta guud ee dadka ku naf waayay dhibaatadan waxa ay gaarayaan 227,000 ilaa 230,000 oo qof sidoo kale warbixinaha qaar ayaa sheegayeen in dadka ku dhintay musiibadan gaarayaan 275,000 oo qof qaramada midoobay oo musiibadan xisaabisay iyadoo waxa ay sheegtay in ay gaarayso 227,000 ilaa 230,000 oo qof